wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland ayaa bilowday dib u eegista qaab dhismeedka shaqo iyo shaqaalaha koob iyo 10 hay'adood oo kamid ah hay'adaha dowladda Puntland sida hay'adda asteynta maamul wanaaga, xafiiska hanti dhowraha guud, xafiiska xisaabaadka, wasaaradaha deegaanka, caafimaadka, dekedaha, haweenka, amniga iyo DDR-ta, arrimaha gudaha, waxbarashada iyo waliba jaamacadda BSU oo qayb ka noqonaysa tababarada shaqaalaha dowladda Puntland. mashruucan waxaa dowladda Puntland gacan ka siinaya bangiga aduunka. agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda Barni Ciise Axmed ayaa ka warbixisay ujeedka laga leeyahay barnaamijkan lagu tayeynayo habraaca shaqooyinka hay'adaha dowladda Puntland. waxaan rabaa inaan idin sheego arinta kulankan mudanayaal iyo mudane wasiir waa arintii hore u soo socotay oo ahayd functional review lagu sameeyay 11 hay'adood ee dawliga iyo jaamacadda BSc oo 12 ku ah. arintan waxay soo socotay muddo sidaad la socotaan intiina halkan fadhida waxaana la rabaa haduu lahay idmo in sidii wasaaradii hore oo loo marsiiyay functional review-ga si la mid ah ay arintan u dhacdo haduu lahay idmo inaga ka wasaaradahan tala kuma lihin inaan muxuu ahaaytay aan structure-kiina anagu wax ka bedelno consultant-tigana aan ku faragelino sidoo kalena tala kuma lihin in aan wax kaleeto oo muxuu ahaaytay shaqadayadana aan dhex galno waxaan xiriirinaynaa maadaama wasaaradii shaqada shaqaalaha nahay arintan dib u casriyeynta iyo dib u habeynta hay'adaha dawladda baanu lead ka nahay sida component-tiga mashruuca dokumentigiisaba ku qoran iyo mandate-ka wasaaradda intaba marka waxaan rabnaa inaad sidii hore aad nolol shaqeynayso hufneyd aad nolol sii wadaan shaqadan inta ay ka dhamaanayso sidoo kalena waxaan rabnaa in serious loo qaato arintan oo aan loo arkinin arin sahlan marka agaasimayaasha guud aan ku adkeynayno telefoonada u yeerayno waa wax aan rabno waa go'aan ka gaaris shaqadii wasaaradda. agaasimaha hay'adda asteynta maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dowladda Puntland Cabdiraxmaan Cali Guuray oo kamid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay kulankan ayaa sheegay inay wax badan ka filayaan barnaamijkan. maanta runtii waxay inoo tahay fursad qaali ah oo yani runtii ma aragtay taariikhdeena meel fiican kaga jirta mar haddii reformskii la waday uu soo gaaray meesha hadda aynu joogno oo habeyn lagu sameeyay casriyeyn hay'adihii kale oo dhimanaa dawladda reformkaasi hay'adihii hore loogu soo sameeyay mirihii ka soo baxay waynu aragnay kuwa kan hadda xafiiska iyaga iyo wasaaradaha kale ee dawladda ay ku jiraanna insha Allah ta'ala miro wanaagsan oo dalka iyo dadka waxtaraha baa ka soo baxay insha Allah. wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa faahfaahiyay ujeedka laga leeyahay mashruucan iyo faa'iidooyinka laga arkay hay'adihii la mariyay. dowladda Puntland oo 18 sano jirtay in maanta dib la isu weydiiyo hay'adihii dawladda qaab dhismeedkoodii hal casriyeeyo waxaan isleeyahay waa arin ka timi oo maqraanti ay u noqdeen shacabka iyo cid ay la shaqeysaa intaba kulankii ka horeeyay madaxweynaha dawladda Puntland cabinet-ku keenay waxaan rabaa muhiimadda ay leedahay inaan aad iyo aad inaad uga gacan buuxsataan waan jeclaa kulankan dhabta inay yimaadaan wasiiradu kulankan maanta waxaan ahayd inay wasiiradu yimaadaan sababta wasiiradu waa iyaga u sareeya hay'adda iyo hay'adaha madaxa bannaan gudoomiyaashooda sababta waxa la rabaa in go'aan laga gaaro mustaqbalka ay ku shaqeyn lahayd farsamo ahaan in go'aan looga gaaro mustaqbalkii iyo platformkii iyo mandate-kii iyo shaqadii iyo key departmental functionskii wasaarad walba ay lahaan lahayd iyo hay'ad walba oo hay'adaha maanta halka jooga kamid ah waxa la socotaan 9 hay'adood oo dowladda Puntland hore loogu sameeyay qaarkood waxa la socotaan inaanu ugu nimi 16 department 16 agaasimo waaxeen shaqaalaha ay haysataan waa konton wax suurtagal ah iyo wax aqal gal ah maaha nin walba wuxuu rabaa inuu agaasimo walba waxa ku soo aadaya 3 shaqaale ah
maahan markii ugu horeysay ee sidan oo kale loo hubiyo habraaca shaqo hay-adaha dowladda Puntland waxaana horey barnaamijkan looga mariyay 9 hay-adood oo lagu guuleystay dib u habayntooda. Maxamed Siciid Qoslaaye, Puntland TV, Garowe.